danjiraha safaaradda Soomaaliya dalka Suudaan danjire Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa waxa uu xarunta safaaradda kulan kula qaatay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga dalka Suudaan Madini Cabbaasa. kulankani oo ay wehelinayeen howlwadeeno ka tirsan xafiiska wasiirka ayaa waxa looga wada hadlay sidii loogu nooleen lahaa xiriirka ganacsi iyo midda iskaashi ee dhex mara labada dal kaasi oo jira inta uusan Soomaaliya burburka ka dhicin. sidoo kale kulanka waxa la isugu soo hadal qaaday in ganacsatada Soomaaliyeed si gaar ah looga macaamilo arrimaha ganacsi ay ku leeyihiin dalka Suudaan. sida uu sheegay danjire Maxamed Sheekh Isxaaq, waxaa dhawaan la rajeynayaa kulanka ganacsi ee dhex mari doona labada wasaaradood iyo labada rugta ganacsi iyo ganacsato labada dhan ee loogu magac daray isbuuca ganacsiga Soomaaliyeed. Cabdiraxmaan Siciid Xasan, Talanta Galmudug TV, magaalada Muqdisho. bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa bacd. saaka waxaa kulan uu dhexmaray danjiraha safaaradda Soomaaliya dalka Suudaan danjire Maxamed Sheekh Isxaaq iyo wasiirka wasaaradda warshadaha ganacsiga dalka Suudaan Mudane Cabbaas Madani. kulankaas oo dowladda lagu saarayay sidii dib loogu nooleyn lahaa xiriirka ganacsi iyo mid warshadeed iyo mid iskaashi ay la leenahay dalka walaalaha ee Suudaan. sidoo kale waxaan kala hadalnay sidii shaqaalaha wasaaradda tababar loogu fudin lahaa iyo sidii loo abuuri lahaa dhaqaalaha ganacsi ee midka hadda ay la leenahay dalka Suudaan mid ka wanaagsan. sidoo kale waxaa looga hadlay in heshiis isfahan ay wada galaan labada wasaaradood, wasaaradda ganacsiga Soomaaliya iyo tan Suudaan iyo labada hog ganacsi. sidoo kale waxaa jiri doona kulan ganacsi oo aad u weyn oo dhexmari doona dhawaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa reer Suudaan